وحول صوملة الخطبة من خطبة إن مارت في الصومالي لقدقوا كل إن بدن بقى أمة الإسلام كأي صوت شرتي صحابتنا دول الفرق بدن بيتجين دول كأي تجين إن قلنا أفكودي وخطبة دي اللي مشيين قلنا إن يكون هذين أفكينا قف إذا يكون خطبة دي صار اللي مشيين عد مركادتك إنه الرئي صحابتي يتابعينتي أتباع التابعينتي دول بدنو aan carabahayn iyadoo la furtay in haddana af kale loogu qudbadeeyay lama sheegin taasi markaa maxay kaliftay in culimada islaamka badankoodu ay yiraahdaan waxa shardiya in khudbadu ay af carabi ahaato haddaanay khudbada jumcuhu af carabi ahayna may asixin haddaanay khudbadii asixinna salaadii jumcadu may asixin qodobka aad loo fahmo culimada islaamku saasay u badan yihiin Abu Hanifa rahimahullahu ta'ala oo labadiisii arday ugu waaweynaana ay khilaafeen ayuun baa yiri af kalena waa lagu khudbadeyn karay isagana labadiisii arday ugu cuscuslaa Abu Yusuf iyo Maxamed ibn Xasan baa ka horiyay oo yiri may waxaan af carabi aan lagu khudbadeyn maayo ku gudi mayso culimada Shaafiiciyada waxay yiraahdaan af carabigu shardi ha noqdo laakiin waa inta arkaanta ah xamdiga Ilaahay iyo salliga nabiga iyo al-amr bit-taqwa shan rukniyo ay sheegaan intaas af carabiya laakiin inta kale af kala laga dhigi karaa way yiraahdaan iyaguna laakiin iyaga laftooduna waxay isku sii qabsadeen hadii marka damiyani muwaalaadka in xiriir ba shardiya in labada khudbad ay xiriirsan yihiin labada khudbad iyo salaaduna ay xiriirsan yihiin xiriirkii miyaan dib ku keenaynin ayaa iyaduna marka wax weeyay aad isu sii weydiiyaano qoliyaha dambe ay marka wax weeyaan khilaaf ka sii keenaan marka waxa qurxoon intii ummadda cibaadadeedii khatar la gelin lahaa waxa weey muran la gelin lahaa salaada jumcaduna de waa shaciiro weyn weeyi waxay ila tahay oo aan ku talin lahaa in af carabigeedii khudbada loo soo celiyo sida caalamul islaamiba oo ahaa waxa weeyaan quruntii mufaddaladii ay ahayd in af carabigeedii lagu soo celiyo af Soomaali hadii ay marka wax weeyaan dadkii aanay af carabigii fahmaynin ama hal laga horeysiyo khudbada ka hor ha noqoto ama kadib ha noqoto salaada kadib laakiin labadii khudbadood ee salaadu ay lahayd sideedii hal loo soo celiyo